بسم الله الرحمن الرحيم مسج كان فرينتان waxay ku socotaa waalidiinta Soomaalida waxaan rabaa inaan dhaho ma ogtahay in manhajka waxbarashada ee iskuulada ee wadanka Mareykanka ay isbedeleen ma ogtahay hadda inaan la noolnahay waqti la yiraahdo transgender moment waqti in ka badan 7 state wadankan Mareykanka aan wiilasha iyo gabdhaha loogu yeeri karin isaga iyo iyada waxa loo kala saaraa dharkay xiran kalaradooda waxaan ku jirnaa waqti waalidka oon ogeyn ilmaha magac kale loogu yeeri karo iskuulka ma ogtahay waalid waxaan ku jirnaa hadda waqti runtii hadda akhriso daraasaadka soo baxay mararka qaarkood ilmahaaga uu ku socdo tashkiil wax la yiraahdo social transitioning waalidkuna san war u haynin waxa aad u soo xoogaysanaya runtii waxyaabaha diinteena iyo dhaqankeena ka fog oo hadda soo galay iskuulada magacyada loogu yeero waxa kamid ah acceptance at an early age ama ilmaha in lagu beerayo wax la yiraahdo inay ogolaadaan dadkan inay qayb nolosha kamid ah waxaan rabaa marka inaan dhaho insha Allah taala barnaamijka soo socda waxaan ku eegi doonaa waqtiga cusub ee wadankan uu galay iyo caqabadaha iskoolada ka jira ee burburin kara ilmaha aqoonadooda iyo akhlaaqdooda waxaan rabnaa inaan diiradda saarno dhaqamada ku soo kordhay iskuulka saameynta ay leeyihiin sida loogu hortagi karo sida darteed barnaamijka soo socda waxaan ku lafaguri doonaa mowduucan ku saabsan dadkan la yiraahdo qowmuluudka ama LGBT community noocyada ay u qaybsamaan sida runtii awoodda hadda ay u yeesheen magacyada caruurta loogu yeeri karo iyo sida iskoolo badan aanay qasab u ahayn waalidku inuu ogaado waxaa jiro stateyada qaarkood sida Oregon state oo kale in lagu sameyn karo ilmaha 16 sano markay gaaraan waxay dhahaan hormone puberty blocking hormones oo markaas hadii ilmaha uu lab yahayna dhadig loo diyaarin karo haduu dhadig yahayna lab loo diyaarin karo qasabna maaha waalidka in laga la tashado because sharciga gobolkaas asaasan waxaana waalidiinta Soomaalida inay ku baraarugaan barnaamijyadaas waana ka hadli doonaa waxaanad kala socon doontaan channelkan hadda aan idin kala hadlayo wixii faahfaahin ana screenka hoos ka akhrista. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.